toddobaadkan dunida muslimka waxaa si isku mid ah loogu wada dabaaldegay munaasabadda ciidul fidriga kadib markii muslimiinta dunida ay soo dhamaysteen bishii barakeysneed ee ramadaan. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay goobaha looga dabaaldegay munaasabadda ciidda, iyadoona sida aynu ognahay koonfurta Soomaaliya badankeed ay ka socdaan dagaallo galaaftay nolosha dad aad u fara badan. Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya waxaa berihii lasoo dhaafay ka dhacayay dagaallo galaaftay nolosha dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaa oo iyaga oo la taahaya dhibaatadii laga dhexlay dagaalada iyo weliba dhibaatooyinka ka jira magaalada Muqdisho ay ku soo gashay farxadda ciidda. Dadka ku nool Muqdisho ayaa iyagu munaasabadda ciidda sunnada darteed u gutay, balse maana jirin wax farxada oo ka muuqday dadka. Waxaa lagu arkayay Muqdisho gudaheeda caruur tiro yar oo iyagu u tamashlaynaya farxadda ciidda, iyadoona dhanka kale dad fara badan oo Soomaaliyeed oo gudaha Muqdisho ku sugnaa ay ku ciidayeen iyaga oo dhaawac ah isbitaalada magaalada Muqdisho sida Madiina, Daynile, Keedsanay iyo weliba kuwo kale. Waxaa kaloo jira in xoogga isku haya talada dalka ay iyaguna munaasabadda ciidda darteed dhambaallo hanjabaada hawada isu mariyeen, kuwaa oo ay ku kala sheegayeen in midba kan kale uu maquunin doono xilli dhow. Qaar ka mid ah xoogga isdagaalaya waxa ay sheegeen in dagaaladii dhacayay ay guulo ka gaareen, iyadoona aynu ognahay in guusha ugu weyn ee dagaalkaasi laga gaaray waaba haddii ay jirtee guule ay tahay tartanka loo galay laynta dadka Soomaaliyeed. xaaladda Muqdisho xaalad murugo leh waaye. ilaahay ummad islaam waaye, ilaahay dhibaatada ka qaado, ilaahay sanadkiisa kale si nabad ah oo barwaaqo leh ilaahay ha gaarsiiyo. ummadan waa la dhibtooda masiibo ayaa Soomaaliya ka socoto. masiibadana ilaahay in la baryo oo ilaahay uu noo naxariisto ayaa lagu gudbi karaa. ilaahay waxaan ka baryayaa naxariis iyo in mataqaanaa ilaahay si nabadgelyo leh uu nagu iideeda kale uu nagu gaarsiiyo. Dadku waxa ay ku alla tuugayeen in sanadka kan xiga uu alla ka dhigo mid ka wanaagsan, maadaama dhibaatadu ay tahay mid marba marka ka dambeysa ka sii daraysa. Waxaa xusid mudan in qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ay aad uga warwarsan yihiin dhibaatooyinka soo laalaabtay ee dalka ka jira, isla markaana mar un ay ku haminayaan isbeddel muuqda Ilaahay inuu dhaliyo. balse arrimahaasi oo dhan wax buuran kama ahan alla agtiisa, laakiin waxa dhacaya aynu arkayno ayaa ah imtixaan lagu imtixaanayo ummadan dhibaatooyinka iyagu gacmahooda ku geysanayaan. allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan, allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan, ilaahayna siiyey isagaa ku